كان تدبات جوني أيان لقيلي همين صق لحبة جليسين واحد يسوعنا يسين بان لقى يدي مركا بدأ مركا تكوتشتيل 5 saacadood 6 saacadood meelaha ama 12 saacadood dad ku jirtiin marka baan qabanaya sidii daayar fudud baad ku galaysiin Talyaaniga Malta aad ku galaysiin ayaana laga yiri balse way noqon weyda 4 cisho markaan ku jirno shidaalkii naga dhamaaday doonta biyaha caalamiga shidaal ku gaarsiinayo markaa ku saaraya meelaha galab bay ahayd diyaarad ba markaan dul wareegaysay doonteeday markii sidii ku soo heshay markaa markabkii Liibiyaanka naga dabay muddo markii la soo qabtay badana laga soo dhax qabtay markabkii Liibiyaanka na soo qabtay waxa la geeyay jeel la yiraahdo Sintan ayaan Jasuur la yiraahdo la geeyay jeelkii Jasuur la oranay markaan ku jirnay muddo bila ayuuna wareejiyay wuxuu noo wareejiyay Daraquse Kamal la yiraahdo Daraquse markii hay'addu noo sii wareejisay ayaa waxa dhacday markaan ku jirnay muddo bil iyo bara ayaa dagaal qarxay Soomaaliyeedan facfacdi magafuun ugu haystay dibaaxayntii noo hay baan arki jirnay balse tan oo kale ma arag halkan naga dambaysa anagoo la yaaban xabadan iyo wiftadan bilaabantay noo soo galaysay ayaa waxa naloo soo dhigay in qaybtaasi in yar jabto qaybtii kale anaga halkaygii soo gaaraan jeelkii aan ku jirnay jeelkana ku jirna xaqiisa dambe kaara laga ridayaa maalinba 7 qof ku dhimanayaan ayaa waxa dhacday hay'adii in la raado ayda ay tiraahdo niga wareejinayna meel Sintan la raado marka Liibiya barigeeda ayaan la geeyay markii Liibiya barigeedina la geeyay ayaan u joognay muddo 3 bilood kadib waxa dhacday asxaab maalinkiina loo wareejinayay Sintan naga hadho tribals baan ku noolaan naatri ayaa waxa dhacday in la yiri maalinkii buuqiyo waxa uu socday ayaa la dhacay in dib loogu celiyay bin Waliid ayna ku jiraan underground inay ku jiraan laguna haysto 30,000 ayaan maqalnay markii hore ka qoomameynay waalidkaygii aan xayinkii hooyadii aan ka bixin aabahay oo hiliyo nala garab taagan waxaan u baahanahay inaan nasiinayo iyo wanaagii aan ku haysto wadankayga sidii baan ku codsaday in la soo celiyo ama wadankayga aan ku noqdo noloshaydiina aan dib u bilowdo wadankayga aan ku soo noqdo ama noloshaydii hore aan dib u bilowdo bishii 7 2018 dhexdiisii ayaan go'aansaday inaan soo noqdo waxaan ku guuleystay ama hay'adda UNHCR iyo IOM si wada jiray igu khayr Allah siiya ay igu hirgeliyeen bishii 12aad 2018 ay 11aad ay igu go'aamiyeen inaan soo noqono ama ku guuleystay ilaahayna igu la garab galay alxamdulillah aan leeyahay inaan ku soo noqdo wadankaygii anoo faraxsan maanta aan ku faraxsanahay kana wacyi gelinaya dhalinyartan sii socota ama amigan beenta iyo tashuushka beenta aaminsan waxa ninaan dul aragna dhaayaba la yiraahdaa wallahi meeshaasi wax kaga horeeya dib iyo dhibaato iyo jug iyo dilmo iyo dhimasho iyo geeri mooyaane wax kaaga horeeya ma jiro